shirka golaha xukuumadda dowladda Puntland uu shir gudoominayay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa looga hadlay amniga Puntland, safarka madaxweynaha ee magaalada Baydhabo, xeerka biyaha Puntland iyo warbixino kale. ugu horeyn, golaha xukuumadda dowladda Puntland ayaa ka warbixiyay xaaladda amniga guud ee Puntland iyo duulaanka qaawan ee lagu hayo gobolka Sool, waxayna goluhu cadeeyeen inaan la fiirsan karin qayladhaanta iyo caburinta shacabka Laascaanood lagu hayo ee lulaya calanka baluuga ah iyagoo u taagan astaan midnimo iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Puntland ayaa uga warbixiyay golaha xukuumadda shirkii amniga Soomaaliya ee Baydhabo, wuxuuna madaxweynuhu sheegay in lagu heshiiyay dhisidda ciidan astaan qaran leh oo ka fog hayb iyo gobol. sidoo kale wuxuu madaxweynuhu xusay in isfahan laga gaaray habka wadaagga kheyraadka Soomaaliya, gaar ahaan macdanta iyo shidaalka, iyadoo loo marayo hanaan federaal ah. madaxweynuhu sidoo kale wuxuu ka warbixiyay nidaamka geedi socodka doorashooyinka 2020 ee Soomaaliya, wuxuuna xusay inaan lagu noqon doonin qaabkii hore ee lagu gali jiray doorashooyinka, gaar ahaan 4.5ka. sidoo kale, golaha xukuumadda ayaa loo qeybiyay xeerka biyaha Puntland, xeerkaas oo qeexaya ilaalinta iyo dhaqaaleynta keydka kheyraadka biyaha, wuxuuna si gaar ah u xoojinayaa maareynta iyo horumarinta adeega biyaha Puntland. ugu dambeyn, wuxuu goluhu warbixin ka dhageystay wasaaradda caafimaadka, shaqada iyo shaqaalaha oo howlo shaqo uga soo laabtay Geneva. sidoo kale, goluhu wuxuu aqbalay heshiis ay wada gaareen wasaaradda warfaafinta iyo shirkadda Golis oo ku saabsan fiber optiga. Cabdalla Guure, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Garowe.